بسم الله السلام عليكم رمضان ونعكسن وأمالين كتوانات بيش رمضان إبرامج كيس بدل نلوش هذا شلو حاجة شو كسرني أغرس كي فايدين كونوا لي هاي سلام كنا قنقرنا أغرس ونعكسن وحرجينا يا إن حق بدن كيشين وإذين ساعدي دونتا نلوش إذن بدن كصوبيرين دونتا ما تحرنا أنا وذاقنو سيدين كويلي كرنا هدية دينا أما سيدين كويلي كرنا هودو إلهينا دحديقي sida caadiga dhaxdeena waxa yaala hibo aanan ogeyn inta badan aan ku mashquulno qabashada waxyaabo kale oo aan inaga la inoogu talagelin oo Ilaahay oo sun inoo abuurin balse waxa jirto waxa Ilaahay inoo abuuray oo loo baahan in aan baadi goobkeedii raadinteeda aad aan ugu mashquulno taas oo ah hadiyadu Ilaahay ina dhaxdhigay dhamaanteen sida hore ku soo sheegay waxa jirto waxa adiga kaga duwan tahay dadka kugu hareeraysan ee 15,000 in ka badan ah waxaas aad gaarka la tahay ama kaliga la tahay ayaa muhiim ah mar walba inaad raadiso marka aad hesho waxaad la goonida tahay ama hibadaada ama waxaad la gaarka tahay waxaad helaysaa fursad aad wax badan ku qabato fursad aad dad badan kaga duwan tahay fursad aad dad badan dunida ku nool fariintaada aad ku gaarsiin karto marka haddii aad hesho hibadaada number 1 fariintaada waxay noqonaysaa mid cajiib oo dadka dhan wada gaari karaan mid labaad waxay noqonaysaa qof isku filan noloshiisa oo aanan ka fikirin maxaa qabataa si aad waxa u sameeyso balse waxa taqaanaa hibadaadu waxay tahay hibadaadu wax ku hareeraysan iyo waxaad qaban karto marka hibadaada listeeda waxay kaaga baahan tahay laba tilaabo labaduna waa xeerar mid kastaana uu ku dhex jiro dhowr su'aalood haddii jawaab aad u hesho ay wax badan ka bedeli doonaan noloshaada waxa ugu horeeya waxay tahay xeer aad ku ogaanayso adiga hibadaada number 1 xeerkaas waa xeer ka kooban ilaa iyo 4 qaybood qaybtu waxay tahay su'aalaha inaad ka jawaabto maxaad adigu jeceshahay odiyula maxaad jeceshahay maxay tahay wax aad ku dareemayso farxad iyo jacayl iyo wanaag marka aad qabanayso qalin warqad ayaad qaadanaysaa konton boqol 20 30 intee noqoto oo qalbigaaga ama gudaha ka soo baxda qor list samee markaad qorto intoodadan waxa u gudbaysaa qaybta labaad marka number 1 waxa ogaanaysaa maxaa jeceshahay markasto aad ogaato waxa jeceshahay oo aad jacaylka ku dareemayso waxaad ogtahay in aad qaban karto waxaas in aad sameyn karto in aad waxaas ku dareemayso farxad fara badan marka su'aasha labaad oo jawaabta loogu baahan yahay waxay tahay inaad isweydiiso waxa jeceshahay waad soo ogaatay maxaad ku wanaagsan tahay kontonka aad ku soo qortay listiga hore ee ah aad jeceshahay waxaad ka soo dhex saaraysaa 10 ama 30 ama 3 ama 5 aad ku wanaagsan tahay qabashadooda aniga waxaan jeclahay inaan dadka la hadlo dadka la hadalku waxa soo galay inaan kala hadlo arrimo siyaasad waxa soo galay inaan kala hadlo arrimo ganacsi waxa soo galay inaan kala hadlo hoggaan waxa soo galay inaan kala hadlo arrimo naftooda waxaas quseeya balse waxa aan ku wanaagsanahay aan hubaa waxay tahay inaan leeyahay shakhsiyad dhiirigelina inaan dadka dhiirigelin karo inaan dadka u sheegi karo fariin qalbigooda ruuxi karta marka adiga inaad ogaato maxaa ku wanaagsan tahay maxay tahay waxa aad dadku ay kugu xantaan oo la dhahayo hebel waxaas uu ku wanaagsan yahay isaga aan ula xiriirno marka su'aasha labaad waa inaad isweydiisaa waxaas inta aad jeceshahay maxaa ku dhex jiro aad ku wanaagsan tahay su'aasha saddexaad waxay tahay maxaa qaban kartaa hadeertaan waxa soo ogaato waxa ku wanaagsan tahay idan waxa isweydiinaysaa maxaa qaban kartaa waxa qaban karto marka ogaato waxa qaban karto macnaheedu waxay tahay hadda maxaa fulin kartaa awoodeedii leedahay oo quwadeedii aad leedahay oo bulshada aad kaga soo dhex bixi kartaa oo deegaanka aad ku nooshahay xaaladda aad ku jirto aad samayn kartaa waxa aad ku wanaagsan tahay way fara badnaan karaan balse waxa aad hadda qaban karto tiro yar ayay noqon karaan marka waxaad qaban karto ogow waxa qaban karto marka ogaatana dad action u bedel mid ugu dambaysa waxay tahay deegaankaaga ama dalkaaga ama xaafadaada ama maxay tahay bulshadaadu maxay u baahan tahay intaas aad qaban karto haddii 3 ay yihiin ama haddii ay 2 yihiin ama hadduu hal yahay deegaankaaga ma u baahan yahay marka aad waatu Ilaahay isku dhahay qoom Ilaahay ma bedelo ilaa iyagu isbedelaan hibadaaduna dunida ma gaarto ilaa dadkaaga iyo deegaankaaga ay arkaan marka ana xaafadda ka bilowda deegaanka ku xijisaa bulshada ku xijisaa gobolka ku xijisaa dalka ku xijisaa ilaa heer waxaad gaaraysaa international marka ana number 1 ogaata su'aalahaas aad ka soo jawaab su'aashkaadu ahayd maxaa jeceshahay mid labaadna waxa ka jawaabaysaa maxaa hadii ay waxaas aad jeceshahay maxaad kaga wanaagsan tahay waxa kaga wanaagsan tahay marka ogaato su'aasha kale aad weydiinayso waxay tahay maxaad ka qaban kartaa waxa ka qaban kartaa marka ogaato waxaad sii weydiinaysaa deegaankaaga hadeertaan muxuu uga baahan yahay arintaas waxa u gudbeenaa mid labaad oo ah in aad xeer labaad u gudbeenaa xeerka labaad waa mid aad ku ogaan karto sidoo kale shakhsiyadaada iyo qofka aad tahay
marka ratibadaada inaad ogaataan number 1 aad soo ogaato waxyaabahaas waxa laga maarmaan horta shakhsiyadaada waa mid noocay ah si aad shakhsiyadaada u ogaato waxa jiro daaqado lagu ogaado daaqadaas waxa la dhahaa afarta daaqadood ee lagu ogaado shakhsiyada daaqada koowaad waxay tahay daaqad aad adigu garanayso balse aysan dadka deegaankaaga ama saaxiibada ama familkaaga aysan garanayn waa hadii maanta lagu dhaho adiga kuma tahay dad kale aysan ka jawaabi karin balse aad adiga ka jawaabi karto marka waa inaad isweydiisaa horta daaqadaas aad baartaa oo baadi goobtaa mid adiga taqaano daaqada labaad waxay noqonaysaa mid aadan adigu aqoonin balse dadka kale ay yaqaanaan qoyskaaga saaxiibadaada bulshadaada dadka uga hareeraysan midaas waa inaad ayaga weydiisaa saaxiibada aad ugu jeceshay saaxiibadaada inaad soo dhawaysataa aad weydiisaaniyo aniga maxaan ku wacanahay maxaan ku haboonahay maxaan jeclaa qabashadeedii maxaad igu tuhmaysaan oo aan qaban karaa inaad ayaga weydiiso aad kala sheekaysato markaad kala sheekaysato waxay kuu fududaynaysaa inaad ogaato hibadaadu waxay tahay ama waxaa ku wanaagsan tahay ama waxaad jeceshahay qabashadeedii daaqad saddexaad waxay tahay waxaadan adigu garanaynin iyaguna aysan aydan garanayn balse uu yaqaan Allah subhanahu wa ta'ala midaas waxay rabtaa baadi goob iyo raadin fara badan waa inaad qaadataa buugaag badan aad akhrisaa buugaagtaas aad ka dhex helaysaa baaritaanka badan aad samaynaysaa ka dhex helaysaa ilaahay aad cibaadadiisa xiriirkiisa wanaajisaa aad ka dhex helaysaa marka waa inaad waxaas samaysaa dadkana ma yaqaanaan adiga ma taqaanid waa inaad marka taas baaritaan fara badan gelisaa marka taas helisteeda waxaa la dhahaa waxay samaysaa wax aan inaba caadi ahayn marka waa inaad baadi goob fara badan gelisaa daaqada ugu dambaysa waxay tahay daaqada adigii dadka aad wada garanaysaan oo adigana aad og tahay dadkana ay wada og yihiin marka afartaas daaqadood haddii aad baarto iyagana oo aad baadi goobto shakhsiyadaadana waad ka dhex helaysaa sidoo kale waxaad ka dhex helaysaa hibadaada iyo kartidaada hibadu waa waxa ilaahay hadiyad kuu siiyo ee sida aad u raadiso ee aad u baadi goobto ayaa wax adiga doorashadeeda ku yaala maanta u dhaqaaq oo u kac helista hibadaas iyo baadi goobka hibadaas si aad u noqoto xidig dunida dhan saameeya maanta halka ay ku soo gabagabeynayna barnaamijka bedel noloshaada aan ugu sheekaysanay sida aan ku heli karno hibadeena oo aan ku wadaagnay laba tilaabo oo muhiim ah noloshaada haddii labada tilaabo aan raacdo aan rajaynayna wax badan ka faa'iidi doonto haddii aad jecesho su'aal iyo fariin in ay la wadaagto Gmail shaashada kaaga muuqda aad igala soo wadaagi kartaa mahadsanidin anigu waa Cabdi Fataax Qaasim Cali Ramadaan wanaagsan